بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ugu soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan beejkan muqal wareedka intuu saanayo haduu eebweyn idmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan dawladda dalkaasi Mareykanka oo cadeysay in maamul goboleedka Somaliland ay la macaamilayso Somaliland waa sida warka loo dhigay dawladda dalkaasi Mareykanka ayaa muujisay in Somaliland ay ula macaamilayso sidii maamul ka tirsan Soomaaliya iyadoo Washington cadeysay inay aqoonsan tahay madaxbannaanida iyo midnimada wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa sida warka loo dhigay fadlan maqaalka Aleega saar oo sheer garay oo u geey cid u baahan Washington ayaa warbixin rasmi ah oo u gudbisay Koongareeska dalkaasi Mareykanka ku faahfaahisay meelaha suurtagalka ah ee in lagu xoojin karo wada shaqaynta u dhaxaysa Somaliland iyo dalkaasi Mareykanka warbixintan oo ciwaan looga dhigay meelaha uu Mareykanku iyo Somaliland ka wada shaqayn karaan ayaa waxa lagu qeexay in Somaliland ayna ku sheegan in maamulka Somaliland uu muhiim u yahay muhiimad gaar ah u leeyahay oo daneynayaan danaha istiraatiijiyadeed ee dalkaasi Mareykanka maadaama ay ku taalo goob muhiim ah oo u dhow marinka Baabul Mandab ayaa leeyri Baabul Mandab iyo xeebaha badda cas waa sida warka loo dhigay sidoo kale waxa warbaahinta lagu xusay Washington ayaa Somaliland u aragta meel muhiim u ah oo kaalin ka qaadan karta ilaalinta amniga gobolka Geeska Afrika iyo marinka caalamiga ah ee ganacsiga kuwaas oo muhiim u ah dhaqaalaha iyo amniga caalamka iyo dalkaasi Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale warbixinteeda ku tilmaantay Somaliland inay noqon karto saaxiib amni oo muhiim ah iyada oo xustay iskaashiga labada dhinac waa Mareykanka iyo Somaliland ay ka geysan karta leeyri xoojinta dadaalada lagula dagaalamayo kooxaha xagjirka ah ayaa lagu yiri ee gudaha gobolka Geeska Afrika soo kale warbixinta waxa lagu xusay laguna sheegay in Somaliland ay door ka qaadan karto socodka iyo ka hortagga khatarta amni ee gobolka Geeska Afrika gaar ahaan sida lagu sii sheegay xiriirka ay la leedahay Mareykanka ee u dhaxeeya leeyri la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale waxa leeyri kooxda Xuutiyiinta ee Yemen kuwaas oo si soo taraysa uga walaacsan yahay dalweynaha dalkaasi Mareykanka waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal dhanka kale waxa lagu xusay in taliska ciidamada Mareykanka ee Africom loo yaqaan oo xiriir joogto ah la yeelan doono mas'uuliyiinta Somaliland isla markaana uu qiimeyn doono fursadaha dheeraad ah oo lagu ballaarin karo iskaashiga dhinacyada amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ayaa lagu sii sheegay saaxiibayaal kulay Mareykanku wuxuu u soo galayaa waa dantiisa Somaliland iyadana danteeda ay ka fiirsan doontaa dadka lama xaqree fadlan maqaalka Aleega saar oo sheer garay hadaad Somaliland irtayna adiga ay ku qusayda warbixinta fadlan sheer garay oo u geey dad badan oo Somaliland ugu farxan nabaday